soo dhawaada asxaabay waxaan maanta idiin soo bandhigi doonaa dhalinyaro noloshoodii oo dhan ku soo koobay inay game ciyaaraan ee si aad muuqaaladooda la yaabka ah ula socotid si daawo muuqaalka. waxaynu xalqadeennan ku bilaabaynaa qiso murugo leh waxaanay bidhaaminaysaa xaalka ay maanta ku sugan yihiin carruurta Mareykanka ku nooli waxaana halkan inooga muuqda hooyo cadhaysan waxaanay u xanaaqsantahay wiilkeeda oo 10 sano jir ah oo diiday inuu tago iskuulka waxaanu ka doorbiday madrasada inuu ciyaaro gameka Fortnite markani maaha markii koowaad ee uu sameeyo balse waxa uu wiilkan yari waqtigiisa ugu badan ku qaataa gameka isagoo intaa ku dadaala sidii uu gaari lahaa heerarka sare ee gamekan halka ay hooyadii la doonaysay inuu waxbarashada aado fadhiga badanna iska yareeyo oo jirkiisa daryeelo maalin waxay hooyadii u diiday PlayStation-ka si uu hore ugu seexdo waxaanu si lagu ogolaado gameka hooyadii ugu handaday inuu iskuulka tagayn haddaanay u ogolaan gameka maamadii waxay aqbashay inuu qaato balse waxay ku xidhay hal shardi oo ah inuu ciyaaro saacad barkeed oo kaliya waxaanu Janiska uga faa'iideystay inuu carruurta la ciyaaraysa caayo kadib markii uu marar badan khasaaray dhaqanka xun awgiina waxay hooyadii ka mamnuucday wiilkeeda ciyaarta PlayStation-ka waxaana kaga xaraysay kabadh guriga u yaala sida aragtama markii uu cadhadii haysan kari waayay waxa uu qaatay bakoorad waxaanu ku kala jibiyay shaashadii guriga taalay waxaana noqotay arrin aan la rumaysan karin xaqiiqi. wiilkan uu isku dhex yaacay waanu waashay waxaana laga yaabaa inaad ogtihiin qisada Freedom Mail wiilka Mexicaanka ah iska soo duuba muuqaalada uu ku cabirayo qaabka uu la dhacsan yahay ugu qoysocsan yahayna PlayStation-ka Fortnite waxaanu ka warramaa khibradda uu leeyahay gameka isagoo xusay in ciyaartani ay ciyaalnimadiisii burburisay waxaana ka dhigtay shakhsi xidhxidhan oo cidna cilaaqaad la yeelan karin waxaanu marmarka qaar cunto aanu dooninba u doontaa McDonald's la jaarka ah isagoo ka soo cuna cuntooyin aan u baahnayn oo wada faat ah ugu dambeyntii wiilkan waxa gabi ahaanba isbedelay dhaqankiisii waxaanu soo baxay sida muuqaaladiisa laga dheehanayo dhaandhaan sacsaca waxaanu sameeyaa oo matala ficilada dhibanayaasha gameka ku jira oo kale dhanka kalena waxa uu saacado dhan ciyaaraa jazz dhaansigaas oo u gaara shakhsiyaadka matala gamekan Fortnite sida muuqaaladiisa laga garanayna waxa wiilkan raad weyn ku raabtay gameka uu ciyaarayo waxaanu dad badan ula muuqday inaanu fayoobayn muuqaalka saddexaad ayna soo qaadanayna waa wiilkan waana mid maalintiisa oo dhan ku qaata ciyaarista gameka Fortnite iyo daawashada aflaanta powerka sida Avengerska mana kaco ilaa mar uu cunto doonayo mooye maalin waxa guriga ugu yimid wiilkan waana wiil YouTuber oo ay saaxiib yihiin waxaanu guriga ugu yimid kadib markii uu ayaama ka qaban waayay telefoonka waxa uu ka codsaday inuu xaflad aroos u raaco laakiin waa uu ka diiday isagoo ka doorbiday inuu ciyaaro PlayStation-ka waxaanu wiilka YouTuber-ka haysiiyay $200 oo uu ka helay muuqaaladiisa YouTube-ka balse uu saaxiibkii u raaco laakiin waxa uu ku madax adeegay inuu iska joogo guriga waxaana gaadhay ilaa heer ay isku dhacaan saaxiibkii isagoo waxyeelo gaadhsiin gaadhay waxaana intaa isku maagayeen inakeen iyo ka tagi maayay gameka YouTuber-ka Gringo waa shakhsi kale oo gamekani dhibaato baan ku hayo waana shakhsi dabeecad xun waxaanu mararka qaar kibir ku maagaa xaaskiisa mararka qaarna waxa uu ku cadho burburaa agabka gurigiisa yaala waxaana marar badan la arkay isagoo jajabinaya qalabka halbowlaha u ah gameka waxaana u daawaday mid ka mid ah muuqaalada uu jajabinaya Xbox-ka 12 milyan oo daawade waxaas oo cadhaayina waxay qabataa markuu marar isku xigta guul daraysto halka uu sidoo kale ku kibro saaxiibadii markay ka badiyaan ciyaartan ninkan aad moodo 40 jirka waxa uu sheegay inuu 28 sano jiro waxaana wax la yaab noqotay in ninkan weyn uu saa u dhaqmo iminka ninkani waxa uu leeyahay kanal YouTube waxaana moodaa inuu yara degay miisaankii badnaana iska riday ugu dambeyntii waxaan barnaamijkan ku soo qaadanaynaa Casey waa wiil British ah oo da'diisu tahay 26 sano sidoo uu fadhiyay barnaamijyadan gameka ahna u ciyaarayay waxa uu culayskiisii gaadhay 300 kilogram waana miisaan muuqiisa ka dhigay qaab daro sidaad ka aragtaan muuqaalka markii uu yaraa waxa uu hadiyad ku helay gameka Counter Strike kadibna sidaas uu ku dhex galay kuna barbartay gamemkii iminkana waxa uu waqtigiisa ugu badan ku qaataa gameka Fortnite waxaana taa ka sii daran inaanu mar kale joojinayn marka uu gameka ciyaarayo cunista cuntada dufanka badan leh dhanka kale waalidkii uu ku daalay sidii uu la hadlayay danna kama galo imika isagana uu keenay wax kasta oo wiilkiisu u baahdo xitaa isaga ayaa caawiya marka uu qubaysanayo waxaana uu sameeyay barkad yar oo uu ku qubaysto marka uu ciyaarta gameka ku soo daalo I'm accepted in all those virtual reality worlds and the gaming world I'm in. No one sees me. No one sees me. That is my outside. That is my world that I can be the Casey I want to be
but not be judged on my weight.